معلومة تمغانية يقوم الدوران يتكلم يا الله يغير إنما غيرك فوضعي عقلك الدوني لك كان يقول زوجك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن إذا وان السلام يا دمانتي ميرو بود جوكتان وحانا إذن رجينا يا خير يا وناد يا برواقو وحان كاعصن لها inaad channelka subscribe ku samayso waxaan kaloon ku weydiisan lahaa inaan aniga maxay ahayd muuqaalkayga siba dee timahayga aan lagu mashquulin waxaad moodaa dhibaatooyinka ina gaadhay inay ka mid tahay inaan qofka integritygiisa iyo qofnimadiisa aan la tixgelin la eego madharkiisa iyo maxay ahayday waxyaalaha ka muuqda ama kasoo taagtaagan marka aynu ilaahay uga baqano dadkana maxay ahayday yaan magacyo xunxun iyo waxayna kaa mudnayn lagu magacaabin waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo mawduuc yar oo badiihiya oo ay ahayd qof walbo Soomaaliya inaysan maankiisa ka bixin mar qura haba ahaatee ka hadalka aan ka hadlo maanta mawduucani daan uu garanba maayo wax uu soo kordhin doono haddaan si xaqiiqi kaala hadlo waxaan maanta halkan ka odhan doono inay wax soo kordhin u malayn maayo yani saraaxa waxaan rabaa inaan ka hadlo wuxuu yahay qabyaaladda iyo qabiilka dad baa laba macno u kala sameeya qabyaaladda iyo qabiilka laakiin anigu wax micno oo ii kala leeyihiin ama faraqa ma jiraan qabiil iyo qabyaalad ka ani ahaan tacriiftoodu waa waadix laakiin innaga contextiga Soomaalida markii aan eego wax farqi ah u dhexeeya qabiil iyo qabyaalad ma jiraan dad baa waxay ku oranayaan war qabyaalada xun mooyaane qabiilku ma xumo oo ayagoo soo daliishanaya aayadda quraanka ahayd يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أنت بدنا نسكت مدة ميان حتى أو أنت دنبه إن أكرمكم عند الله أتقاكم تا والله يا بلا أنا معنى إنه يهل هيدو أو فهم كقبيلة قبيل يركض لين لهيد دتكو إني الله كعب صدان حتى لو ما دروا شعوب وقبائل حتى حلقة يا بعد أنت ظهرين على سود ريشين وكلمة حق يراد بها باطل وآية قرآن ومحيا هيدي واجب إن الرعا وحين فريسو لكن هذا مش وحسوق لي وتعريف آية واسدة وقبائل ذن لشيء وقرآن بشيء ما إنك سيدا نقعنا سيدا بسشي قلوا باوسي كلا بحيسو maxay ahayd waxaan la soo koobi karin ma waxa marka aayadda quraanka ahayd aynu tusaale ahaan ugu soo qaadanayo taariif ma halkaas uu noqonayaa mise waqabaa'il wuxuu noqonaysaa maxay ahayd qaab oo ethnicity ah iyo in Soomaalida oo kale cunsurka Soomaaliga ee loo yaqaan kama hadlaayo macnaha markan national identity Soomaali miyuusan kaasi noqon karin qabiil وماشي أتقف صومالي والبقاركتو إذا قنصنيسو صومال نمنو ميسن وحن كهلا يا جريتان كا دد نمي صومالي ذا هوري ميوسن كازي قبيل نقون كرين حيث واحد لو دونيو يا آيات القرآن كا متقانا مرو بلوغو جيبنيو إنه متقانا هقامي كهاد يو دقماد يو سلطان أي كسو بحان آيات القرآن كا ما دنكن wanaagsan ee inoo khayr badan aakhiri adduunba ma la aado hadii waxaan la doonayay aysan khalad iyo quraafaad iyo maxay ahayday waxaan loo jeegnuusan ahayn
waryaada maxaan qabyaaladii qabiilka ugu dheganaanaa miidan arag waxa iminka ka socda Soomaaliya iyo meel walba Soomaalidu tagto waxaan doorashada lagu sheegayo iyo faragelinta foosha xun ee wadamada shisheeye ugu hayaan miidan arag dacdarrada iyo dhibaatada haysata dadkiini ee meel walba ku balanbalay kuna hoogay meel walba ay joogaan wallahi baan ku dhaaranayaa waxa iminka socda ayaa socday 60kii oo ahaa waqtigii ugu horeeyay ee wax Soomaaliya la yiraahdo lagu qoray ama loo aqoonsaday waxaas ayaana socon doona 100 sano iminka kadib waa haddii laga digtoonaan waayo waa haddii taasi Soomaalidu iyo Soomaaliya waxa loo yaqaano si jiraane waana hubaalba si jiri mayso ama si jiri maayaan Soomaali ama wax cunsurka Soomaaliga loo yaqaano ruuxa bulsho isku haya waa nidaam iyo system leh cadaalad iyo wanaag dawladeed ruuxana laga tago yaan lagu akhri seegin ummadeena iyo ubadkeenuna yeesan ku ay waayine intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh